السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة بانو كسوم كنا أنا جاي كربك وحفردني مع وارسان أنا جوا سارة من عبد الله أنا بنجي سلامنا مركلة ودي سلامتي وانا كده كده شكدي وانا بلا بينا waxaan ka sheekeynaa qiso dhaba ama maxay ahayd true story yani kala dhaqaaqa emotional iyo waxaan u dhaxgaleynaa horta aad maxay ahayd marna horta nimca qisada waxaad u samaysay ciwaan bilowgii jacaylkeena aniguna waan bixine waa siday ahayd ee lagu soo gudbiyay good markaas waxay ka bilaabmaysaa min bilaabaa bilow waxaan kugu hore qisada horta idinka sheekeyn doona insha Allah waxaan ka soo qaadi doonaa dhowr alqadood ilaa 6 ama 5 halqadood intaas alqadood ama part 1 part 2 ilaa part 5 ama 7 baan idinku dhameyn doonaa insha Allah waad iska sugeysaan dadkeen aad u degdeg badan yihiin moogtahay marka aad iyo aad insha Allah nooga raali noqon doontaan maadaama aanan maanta intaan bilowno aanan dhameystirahay 15 minute ama ugu badnaan 20 minute wax duuba marka intaana kuma dhameyn karo sax waa qiso jacayl ah indhaha marna waa murugo iyo oohin iyo xoog qabsan doontaa marna farxad ayaad dareemi doontaa qofnimo daawadayaasha waan ka simanahay samaha part 1 baad noo bilaabaysaa part 1 baan idin bilaabayaa waxaan leeyahay bilowgii jacaylkeena waa socdaa meel baa loo socdaa waxaa safar safarkuna hawlahayga aniga samaha safar baa loo socdaa waxa weeyaan wiil iyo gabadh markaa isma yaqaanaan mid waliba meel ayuu u baxayaa markaa meesha loo baxayaa gadaal baad ka ogaan doontaan insha Allah laakiin waa wada safray waa wada safray markaa gaari baa kulmiyey gaari baa wada kulminaya diyaarad baa kulminaysa yani kuyuugiba hataa meel waliba waa isku aad iyo aad waa shaqooyinkan u baahan marka waa la isjeclaaday inanta waxaa la yiraahdaa dhudi inankana waxaa la yiraahdaa dhig adoo la baxay ana ula baxay waayo dadkeen waa dad yani aad baan horta u salaamay dadkii qisadaas igu soo amaanaystay iyo dadkii maxay haydeen daxal ogaalka ka ahaaba aad baan u salaaminaa anagoo dhameystiran waxaan leeyahay maxay haydeen qisadaasi dhudi ayaa way baxaysaa gurigoodii kasoo diyaar garoobaysaa waa inan dhalinyara maasha Allah aad u qurux badan maasha Allah inankuna waa inan sidoo kale isaguna maasha Allah maasha bacdeen waxaa lagu kulmayaa boostejada ama basaska meelaha laga raaco waxaa loo socdaa wadamada dariskeena waxbarasha lagu socdaa markii ugu horeysay shandadii baa lasoo xidhay labadii dhinac oo aan sugeyn boostejadii gurkiisa kusoo diyaar garoobayaan shaqoon isnoogay wakaa good boostejadii basaska ayaa lagu kulmay haddii lagu kulmay waa maxay ahaydey adigu la saararkay aragtidii ugu horeysay good bacdeen meesha dad badan ayaa jooga faantay dad badan ayaa jooga bacdeena dadka badan yani iska markii ugu horeysay qacdi ugu horeysay waa la iska helay waa la is arkay ma oran karo waa la iska helay markii laakiin waa la is arkoodayo inantiina inankiibay markiiba shaqac ku siisay deeg bay soo aragtay inankiina dhuti baa dheeg aragtay maasha Allah yani dadka markan sheekadooda dhageysan marka qaarkood aad baan taageeraa marka qaarkoodna dib badan bay soo marayaan maxay hayday yani waa diyaar emotional baad yar noqonaysaa sax markii ugu horeysay waxay sameeyeen way is arkeen hadday is arkeen waxay isku yimaadeen adoo halkiiba isku yimaadeen markii isku yimaadeen gaadhigii baa la wada raacay gaadhigii markii la wada raacay ayaa maxay hayday barashadii ugu horeysay markii aragtidii ugu horeysay waxay xigtay barasho alaab baa la isku qaaday ama waxba la iska caawiyay waa la iscaawiyay inamadeenuna maasha Allah caawimaad Soomaalida Allah barkeeyo bacdeenna magaceedii baa la istaafsaday aniga dhudi baa la yiraahdaa isagana dhig baa la yiraahdaa uu sheegaana dhudina dhig baa la yiraahdaa barasho wanaagsan waa la kala tagay safarkii koobaad baa dhamaaday
waa la kala tegay lambaro iyo waxba lama kala haysto laakiin sheekadii iyo in yar ayaa iskugu dhacday markii ugu horreysay dabeetana waxoogay baa magaalo kale lagu yar habsaamay ma habeen kalaa la is arkay habeenkii kale markii la is arkay yacni hees baan xasuustaa iyagaan ballamin bay markaas arkay mayha iyagoon ballamin because de mabay talagelinay ballamaan dadkan jidkan uga kulmiyey dee eeg iyaga dareenkooda u dheeraa laakiin oo meesha dee waxbaa laga waday laakiin maxay hayday mar labaad bay is arkeen meelihii dee baasaboorada laga qaatay sax ayaa la isku arkay migrationada iyo meelahaas ayaa la isku arkay dabeetana alla waa dhudi alla waa dheeg maasha allah deetana saasta isku eegeen ayaa xogay laysyar deetana markaas ayo dee lawaad soo arkay sax waaw ma fiican tahay khayr maasha allah adiguna sidaa tahay aad baan wanaagsanahay inaad nabad qabtaan kurshanaya maalintii niyadan kuga hay budee garanaya maalintii niyadan ku hay inaan kusoo waco laakiin lambarba kaalamaan harin waan ka xumahay aniguna sidoo kale waan ku xasuustay laakiin lambar baanan kaan haynin bacdeen yar baa sheekaysanayaa waa la kala yaacayaa waayo waqti iyo dee waalid baa dambeeyo oo dadkani waxbarasho ka socdaan bacdeenna waxay aragtay maxay hayday waa la kala qortay lambaradii waa la kala socday waxaan kugu odhay jacaylkii adduunka ayaa halkaa ka bilaabmay maasha allah maxay hayday bacdeenna waxaa dhacday dee ma ku booday sida heesaha qaarkood baan yani ma xifdisani laakiin insha allah dee hoos baan iiga soo qori doonaa ay isku dhegeysanayaan ay isku mashquulinayaan waa la isdiyaariyey waa la baxayaa insha allah markaa dhammayn maayo intii koowaad baan idiin wadaa laakiin maxay ahayde insha allah waxaan leeyahay in yardad ka waran dhegihni iyo maanisiyaad leedahay meerarowgana xaggaaga weeyaan iyo heesaha iyo wallaahi horta aniga kaas isaga soo fadhiya ayaa waxaan dareemayaa safradeydana wadagta inay badan yihiin anoo intaan safar waxbaan basawirtay anoo intaan safar galay laygu dubxay oo lay dul degay oo aan dul degay waxbaan xasuusta horta inta isjecelaysku hays waafajiyo dhudi iyo dheegnaa aad baan u salaamaynaa meel kastay joogaan kule anigu sheekada sidiinoo kale daawadayaal ka ahay intaad maqasheen baan maqlay sheekadani waa marka hore secret life iyada lagu ammaanaystay laakiin way ka sheekeynaysaa waa ku cibri qaadasho waa quduro waa true history waa in wax lagu kala dhaxalo adduunkana xun baa la kala dhaxalaa waa run adduunyadu baa layidhi waaba hadal hayn gebigeediba bacdeenna maxay ahayday anyway waxaa laiskugu imanayaa markii saddexaad meelaha diyaaradaha laga raaco waliba diyaarad gaaruu raacaya jacaylkii iyo hadalkiiyo dhowr jeer laysleer hadlayo doonistii koowaad markaasi bilowgii jacaylkeena aada iyo aad ayaad u xumaanaysaa inaad tago wadankaas maan jeclayn haddaan mooday inaad qof adiga oo kalihi aad maxay ahayday dhudiyey hadduu qof adiga oo kalihi wadankaa wax kasoo baranaya aniguna saas oo kale ayaan samayn lahaa wadankaa iyo jaamacadaasaan ku qoran lahaa laakiin waa bedelan lahayn baa saaxiib laakiin binasiib maan helin ana wadankaasaan tegayaa adna wadankaa tegaysaa aad baan u xumahay laakiin su'aal baan ku weydiinayaa shakadaada kaa dhexgal kulliina noo dhamaysa baan wadaad xilqad labaad noo sii daynayso weli in yaray laakiin dadka isjecel maxaa inta badan kala fogeeya waxa kala fogeeya hortii duruufaha ayaa badan iyadoon xumaan iyo wax kalaba jirin duruufaha ayaa badan bacdeenna waxa maxay ahayday werwer adigu intaanan su-aalaha ku yar socnin werwer badan baa dhacay inantii dhuli ahayd waa tiri intay saa u seegtay inankiyo garabkaa ku haysta boorsadiisii shantadiina halkaa gacanta ku haystay saa u sii eegtay markaa dhudi hooyadeed ay isla socdeen dheegna waa keligii saa intay u sii eegtay hooyadeed garabkeeda qabsatay saa u sii eegtay ayay tiri waxnaan lahayda inaan halkaad joogto ku noolaa kuu sii raaci lahaa ama wax kusoo baran lahaa isagoo afku ka yidhi oo wuu sheegayba iyaduna niyaddiisaa uga leedahay
wacnidaada iyo quruxdaada iyo wanaagaaga iyo sida aad ii caawinaysay ilaa waa tan isku nimad adigoo kala noolaa ilaa hooyaday iyo saad hadalkaagii aad baan uga helay dadana saas ay oranaysaa haddana way kasoo horboodsaa maasha allah bay odhanaysaa markaa laba diyaaradood oo kale ayaa la kala raacaya sidaa halkaa waxay noogu joogto maxay ahaydee insha allah ma ku cabiri karaysaa dareenka xabad yaroo heesa ayaan insha allah qac ku siin doonaa oo dareenka kala fogaanshaha moobeelkayga baan cabdiraxiis bay kugu deeqayaa bal heesta ma dhegeysi anigu iyo daawadayaasha yar saaxiib feedback baad nagu socodsiisay emotional baa tahay waayo qofku markuu qisada hayo iyo marka looga sheekeeyo different weeyaan sheekan wadaaye laakiin markii hore aad baan iskula bedelay yacni xiisaheedii hortiigu haysay waay sidan anigu idinka sheekeynayana dhowr habeen baa laiga sheekeeyey marka waxaan rajeynaya inaad yacni ku raaxaysan doontaan aanad maxay ahaydee wax ka faa'iidi doontaan muhiimadu waa taas muhiimadu inanka inantaana duceey إذا دعي هبارتوني ما باهني ما يصير ده بدو عادة لقى ممر ما هو يان حتى يسألين صاحبنا يسكوب بلستان فرايا ريسي فعل وين أميقرين فرايا ريسي فعل وين أميقرين فوتيو سدو مربا فوتيو فرمتي بالطيركا